I love Jamaica official. I want subscribe, like, share. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kulan wacan oo hagaagsan daawadayaal meel walba joogtaan. bartan waa Jamaica official, waa janaalka bulshada ay ku midoobaan meel walba joogtana daawade. markale ku soo dhawow warbixino iyo muuqaalo cusub oo ku xiiso geliya. haddaad ku cusub tahay barteeda daawade markale subscribe dheh oo gambaleelka furo si maalin walba muuqaalada aan soo gudbiyo aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada. maasanid maantana daawade muuqaal kale oo xiiso leh ayaan kuu soo gudbinayaa. waxaan soo qaadanayaa maanta sheeko xiiso leh. haweeney ninkeeda furin ka dalbatay maadaama ay xamili kari weeday jacayl xad dhaaf ah oo ninkaasi gabadhu qabo. waa sheeko xiiso leh oo aan filayo daawade in aad la dhici doonto. haddaba sheekada oo xiiso leh waxay ku bilaabanaysaa daawade. haweeney imaaraadka ama dalka Dubai sa u taqaanidba ka soo jeeda ayaa doonaysa in ninkeeda iska furto maadaama jacayl xad dhaaf ah siiyay gabadha shaqada guriga oo la qaybsaday darteed. maxkamad ku taala magaalada Alfujaara ee dalka Imaaraadka ayay u sheegtay in ninkeedu aan la doodin kuna qaylin mar walbana uu dhankeeda u dabacsan yahay. laakiin iyadoo arrimahaasi oo dhan ay jiraan oo xaaskiisa aad u jecel yahay ayaa haweeneydan daawada ay sheegaysaa in ay noloshu ay ku adag tahay. waa sidoo qoray wargees qaliijka ka soo baxa. sida ay jaridu sheegayso haweeneydan ayaa ka cawanaysa daawada in jacaylka iyo kalgacaylka uu ninkan u qabo gabadha ay meel sare gaartay ayna tahay sababta ay furinka uga codsanayso maadaama ay xamili kari weeday dhaqankiisa dabacsan. haweeneydan isu tagga Imaaraadka daawada ka soo jeeda ayaa maxkamad ka hor sheegtay waxaan u dhibtooday jacaylkiisa xad dhaafka. wuxuu igu garab siiyaa shaqada guriga anigoonan ka codsan. lamaanahan oo muddo sanadaha isqabay ayaa gabadhu waxay ka andacoonaysaa in uu marnaba ku qaylin weligii inta isqabeen. maray ka cabanaysay miisaankiisa oo yaro saa'id noqday ayaa waxay intaasi raacisay sida ay tiri weeyaane nidaam cunto oo adag ayaan u faray ayay tiri si uu isku caateeyo isboortiskan uu ciyaaro ama kubadda cagta ama jiim kale u aado. hasaatee wuu uga diiday ayay tiri. waxay gabadhan hadalkeeda sii raacisay daawade waxaan aad ugu hamuun qabaa inaan maalin uun murano laakiin arrintaasi waxay u muuqataa mid mustaxiil ah maadaama ninkaygu xil walba romantic yahay oo aad u jecel yahay. wax walba aan ku sameeyo igama hoos qaado maalin walbana hadiida ayuu igu harqiyaa sida daadka oo kale ayay sii raacisay. waxaan u baahanahay ayay gabadhan ku andacoonaysaa iminka inuu si dhab ah ila murmo. noloshu maaha mid dhibku ka maran yahay oo baarinimo uun ku dhisan. ninka ayaa dhankiisa maxkamadu u sheegtay inaan waxba laga soo qaadin codsiga xaaskiisa. ninka ayaa dhankiisa maxkamadu daawada iminka u sheegaysaa in aan waxba laga soo qaadin codsiga xaasku iminka ay ku dalbanaysa furinka. maxkamadu waxay u sheegtay cadaalad maaha in guur sadanka koowaad lagu xukumo. dadka oo dhan qaladaadkooda ayay wax ka bartaan. waxaan jecelnahay inaan noqdo nin wanaagsan oo aan dhib badnayn ayuu maxkamadda ka hor sheegay ninkii laga andacoonayay weeyaan. maxkamaddu waxay amartay in gal dacwadeedkan dib loo dhigo. lamaanahana ay ku fakartay marka si loo fiiriyo inay dib isku laabtaan oo ay arrimahooda si hoos u xaliyaan. hase ahaatee daawade sheekada xiisaha leh waxa weeyaan gabadhan oo Imaaraadka iminka caanka ka ah ayaa la sheegayaa waa sidoo wargeeska qaliij James uu qoray in gabadhu ay ka andacoonayso in ninkeeda guriga u xaaqo ilkaha u cadeeyo dharkana isla markaas uu hagaajiyo mar walbana hadiyadana uu la garab taagan yahay. gabadhan sheekada waxa xiisaha u yeelay daawada ayaa ah in maalin uun aynan ku fakarin inuu ninkeeda ku qeylin doono. waa sida iyada oo sheegtay maadaama mar walba u qoslo u dhoola cadeeyo hoosna madaxa u foorariyo mar walba iyadu ay la hadlayso. iminka ayaa la isweydiinayaa waa dadka caalamka ku nool waxay isweydiinayaan gabadhan sida ay ninkani ka damacsan tahay maadaama la og yahay qoysaska kala duwan ee caalamka maalin walba inay isku qeyliyaan isla markaasna aynan is ixtiraamin hadiyadna iska dhaafee. gabadhan sheekadeeda ayaan iminka dhowr wargees oo qoray sida wargeeska Indian Times iyo Daily Telegraph iyo sidoo kale Daily Mail ayaana dhammaanba isku raacay inay noqonayso gabadhii ugu horeysay isla markaasna romantic ama jacayl xad dhaaf ah ka cararta. waagaag daawade waxaan filayaa sheekadan gabadhan la xiriirtay in la dhacday isla markaasna aad isweydiinayso jacayl xad dhaaf ah in laga cararo. su'aashaasna adiguna aad maanta aan filayo in aad mar walbana ay maskaxdaada ku soo dhici doonto maadaama la og yahay in jacaylka xiiso gooni leeyahay isla markaasna in raali isku noqdana la doonayo. gabadhana aad noola yaaban tahayna waan filaya. markale Jamaica official hadaad ku cusub tahay subscribe like share saaxiibadaadna la sii wadaag. gambaleerkana ha ka ilmaamin waa ku muhiim si mar walbana muuqaalada corona aad ula socoto. ku mahadsanid.